السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال مركز كوسو دوادا برنامجي aad halkan uga barateen raad media xiliyadii hore goobaha waxbarashada ee muslimiinta uma kala socnaan jirin diini iyo maadi hal goob oo masaajidka ayaa lagu wada baran jiray diinta iyo aqoonta maadiga ah halkaas ayuu ka soo bixi jiray aqoonyahan muslim ah oo ka dhisan dhan walba diintiisa dhaqankiisa iyo aqoontiisana iskama hor imaan jirin taariikhyahanka reer Denmark ee lagu magacaabo Johannes Pedersen asaga oo ka sheekeynayo habkii ay muslimiintu wax u baran jireen wuxuu leeyahay waxbarashada iyo diintu waxay ahaayeen laba shay oo isku sadkan oo uu ka dhaxeeyo isku xirnaansho adag qofka wax baranayana wuxuu ahaa qof qanacsan ku raaxaysanayo waxa uu baranayo waliba dadka kale ku dhiirigeliya in ay wax bartaan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu masjidka u ahaa goob cibaado iyo waxbarasho marka uu masjidisaba wuxuu ku bilaabi jiray inuu dadka wax baro wuxuu masaajidka ka diri jiray aqoon-yahano qabaa'ilka soo bara quraanka iyo diinta qaybaheeda kala duwan sidaas ayay ku faaftay aqoonta diiniga ah meel walba ayaa la gaarsiiyay waxbarashada diinta iyo midda maadiga ah heerka ay gaartay faafinta aqoonta islaamiga ah iyo inuu qof walba u kaba gashtay faafinteeda waxaad ka garan kartaa ibn Hawqal oo ahaa dhulmareen iyo ganacsade muslim ah wuxuu sheegay in Palermo oo ah jasiirad ku taala Talyaaniga oo ay muslimiintu ka talin jireen uu ku arkay 300 oo macallin oo diyaar u ahaa in ay dadka wax baraan waa mar uu halkaas socdaal ku mareeyay xilligii nabiga sallallahu alayhi wa sallam magaalada Madiina waxa ku yaalay 9 masjid oo waxna lagu barto laguna cibaadeysto madrasadii ugu horeysayna waxa laga furay sanadkii 620 miilaadiga kadibna waxa si xawli ah u faafay furitaanka madaarista qarnigii 8aad magaalada Qurduba waxa ku yaalay boqolaal madaaris aakhirkii qarnigii 9aad masaajid walba waxa ka dhex furnaa dugsi hoose oo wax lagu baro arday iskugu jirtay wiilal iyo gabdho inta badan da'da 6 jirka ah ayaa caruurta lagu geyn jiray goobaha waxbarashaduna bilaash ayay ahayd ama qiimo aad u jaban ayaa wax lagu baran jiray si loo wada helo waxbarashada waxaa la bari jiray ardayda qoritaanka magacyada Ilaahay ee 99 ah suuradaha gaagaaban iyo guud ahaan quraanka kariimka waxa intaas dheeraa xisaabta oo ardayda la bari jiray bilowgii qarnigii 10aad madrasada ama goobaha waxbarashada waxa bilaabatay in loo aado halka uu macallinku degan yahay taas oo ka dhigan in goobaha waxbarashada loo hormariyay si tartiib ah sanadkii 1066 miilaadiga ayuu wasiir ka tirsanaa dawladii Salaashiqada oo la oran jiray nidaamul mulki bilaabay goobo waxbarasho oo asaga loogu magac daray المدارس النظامية wuxuu ahaa mashruuc waxbarasho oo gaar loo leeyahay oo leh dhismayaal u gaar ah waxbarashada laakiin si guud madaaristu waxay soo bilowdeen bilowgii islaamka barayaasha ama macallimiintuna waxay qaadan jireen bilgoosad ama mishaar markii dugsiyadu horumareen waxa loo qaybiyay 4 qaybood iyadoo loo eegayo maadooyinka la baranayo iyo heerka waxbarasho qaybta koobaad waxay ahayd dugsiyo caadi ah dugsiyada caadiga ah waxa lagu dhigan jiray maadooyin guud oo u dhigma dugsiga hoose waxa ay ardaydu ka qaadan jireen shahaado bilow ah oo ay ku galaan dugsiga sare dugsiyada noocan ah ayaa aad u faafay oo meel walba laga furay qaybta labaad waxay ahayd dugsiyada quraa'da waxay ahaayeen madaaris u khaas ah ardayda carabiga sida wanaagsan u garanayso oo loo tababari jiray imaamnimo iyo muadinnimo akhrinta quraanka iyo qiraa'aadka ayaa lagu baran jiray dugsiyada axaadiista waxa lagu baran jiray cilmiga xadiiska iyo fiqiga ardayda dugsiyadan ka qaran jabiso waxa la siin jiray shahaadooyin u dhigma heer jaamacad qaybta afraad waxay ahayd dugsiyada caafimaadka iskuulkii caafimaad ee ugu horeeyay waxa laga aasaasay Dimashq 1231 ka hor ardayda caafimaadku waxay wax ku baran jireen isbitaalada iskuulada caafimaadku aad uma faafin ilaa laga soo gaaray qarnigii 16aad xilligii uu talada hayay suldaankii Cusmaaniyiinta ee Sulaymaan al-Qaanuuni
qarnigii 15aad Cusmaaniyiintu waxay dardargeliyeen waxbarashada. waxay magaalooyinka ka fureen dugsiyo sida kuwa ay ka dhiseen magaalooyinka Bursa iyo Adirna ee Turkiga. waxay ugu yeereen nidaamkooda waxbarasho ama dugsiyada kulliyad. nidaamkooda waxbarashada wuxuu la mid ahaa nidaamyada ama qaababka wax loogu barto jaamacadaha. dhismaha dugsiyadu wuxuu ka koobnaan jiray masaajid, isbitaal, dugsi, maqaayad cunto iyo hool cuntada lagu cuno. waxbarashadan waxay ahayd mid ay heli jireen dadweyne aad u fara badan, waxayna dugsiyadu bixin jireen cunto lacag la'aan ah, daryeel caafimaad iyo mararka qaar guryo ay ku hoydaan ardaydu. kulliyadda Fatih Kulliya oo Istanbul ku taalay waxay ahayd dallad weyn oo ay hoos tagaan 16 dugsi oo lagu barto diinta iyo culuumta qaybaheeda kala duwan.